السلام عليكم walaalyaal waa walaalkiin Hakam waxaan rabaa halkaan inaan idinkula wadaago 3 talo oo dahabi ah oo aad ii anfacday kuna saabsan 10 dambe ee bisha Ramadaan oo ay ku jirto Laylatul Qadriga. Walaalyaal waxaan rabaa inaan talada koowaad idinla wadaago qofka muslimka ah ee raba Laylatul Qadriga ajirkiisa inuu helo waxa koowaad ee uu sameeyo 10 dambe inay noqdaan inuu bixiyo sadaqaysto $1 ama $1 ama £1 hadba wadankuu joogo lacagtiisa. hadduu habeen kasta 10kaas uu bixiyo $1 ama se wadankaas uu joogo $1 wax u dhiganto ama ka badan ama ka yarba wuxuu helayaa iyadoo la labanlaabay oo loo labanlaabay 83 sano. yacni Laylatul Qadriga hadduu soo beegmo adoo bixiyay $10 10kaas waxaa lagugu dhufanayaa adigoo bixiyay 1000 bilood ama 83 sano si aynu Allah subxaanahu wa tacaala ajirkeeda iga siiyo. tirada labaad waxa ay tahay habeen kasta waxaad tukataa 2 ragcadood ama ka badan waayo camalkaad samaysay u dhigmaa 83 bilood habeenkii aad tukatay. haddii uu ku soo beegmo Laylatul Qadriga waxaa lagugu labanlaabayaa 83 sano ama waxay soconaysaa inaad 1000 bilood samaynaysay camalkaan. tan saddexaad ee ugu qiimaha badan ee ugu dambaysa waxa ay tahay adoo habeen kasta akhriya suuratul Ikhlaas 3 jeer. qofkii 3 jeer akhriya suuratul habeenkii aad tukatay. haddii uu ku soo beegmo Laylatul Qadriga waxaa lagugu labanlaabayaa 83 sano ama waxay soconaysaa inaad 1000 bilood samaynaysay camalkaan. tan saddexaad ee ugu qiimaha badan ee ugu dambaysa waxa ay tahay adoo 10 bilood ama 83 sano qur-aanka dhameeyay oo habeen kasta gudanayay. waa ajir aan la soo koobi karin walaal. fariintan insha Allah dadka kala gaarsii siina gudbi lacala waxaa laga yaabaa qof inuu sameeyo aakhirana aad ku aragtid qasnadaada xasanaadka iyo ajirka aad ku aragtid. marka walaalayaal aan ka faa'iidaysano camal kasta oo aad samaynaysid 10 jeer ayaa la labanlaabayaa. waa habeen aad u fadli badan. waa habeenkii Allah subxaanahu wa tacaala soo dejiyey qur-aanka. waa habeenkii wax la qadarin jiray sanadka dambe iyo sanadka dambe qofkii noolaanayo ama qofkii dhimanayo. waa habeenkii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yiri waxaad ku ducaysataan Allahumma innaka cafuun tuhibbul cafwa fa'fu canna. marka ducadaasna akhriya insha Allah. markaad salaatul leylka tukanaysaan aan ka wada faa'iidaysano walaalayaal insha Allah.